kulanti waxaan u xiisaa dhamaantii akhyaarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo Deeqa Aadan Muuse Deeqa Afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda dad aad u tiro badan ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda. Deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexdheliyay. Haddaba waxaan leeyahay Deeqa kusoo dhawow marka koowaad TV-ga. dalmar walaalo mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa. Deeqa Afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan. Bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad u soo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad ka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii. dalmar walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii أنا كنت تلقلين سي أنا كنت تلقلين بقولعي سي أنا لو كنت تلقلين بالله ضوي سي أنا لو كنت تلقلين وقبحي haddaba markaan soo noqono markaad eegto haddaba bal reaction-kii ka dhashay ama dadku fikir maxaa kaaga soo noqday markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalad u baxay. والله دقود قف بس بقوها الله dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim bir Ilaahay qofkii turjubaan Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqlisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay. marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo admoodina adduunka loo soo diro leeyahay diinta dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan dalmarow inta cariiqsadaan bay yiraahdaan madinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalnimada laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya de haddaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqol tilaaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd de waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahnay adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo inaan iska lumin. Deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan ha ahaato ama heesa ka horreeyba ahaatee iyagana maxaad ka leedahay? thank you dalmar walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waan ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cudurdaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow nacajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshayda horta anigu
media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas talmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii labada indhood ba iska soo xireen baaskoolad buu madag hal midba baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta wiil noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid buu yiri dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow buu yiri saas xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyay ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyay arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hajabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne kugu garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arkay xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rekooroni ku soo saarnaa sayga inta badan aan sameeysta kafee yaraan soo shubtaa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen aan samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay sharciyadan westernka deganta waliba dalalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeed soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu hadii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacay dadka Islaamka iyo Soomaalida ma walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharcigan ka haystaa Swedish baanahay guriyada waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yar yihiin intaas waxa dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahanti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaama baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan ahay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taani igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa dega markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga maru tagay hanjabaadahayd weligayna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa
anigu waa iska cafiyay waxa la ii dhiman waa cafiyay laakiin wixii aniga hadda ii record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabay meel bayaalan taas adduunka hadda daa iraada waa cafiyay xitaa idiga yeelayso qoladaas male sababta kuwii 2 sano ka hor kuwii haddana waa iska cafiyay wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagiyo ama la caawiyo dhibaato xagga aniga haysatay waa seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badnayd dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arko marka anigu tasaasana u jecelayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku qasbanahay inaan u tago inaan hala caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabigeeyo oo haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa marka saale waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga aad dareemaya kiis culus weey laakiin Soomaalida way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay deeqa markaad hadda horta waxaan ka anigu markhaati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan dad badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn amaba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waxaan kaaga markhaati kacayaa qodobka aan haddaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay haddii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way kor bay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxa gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana comment-yada maxaad ka leedahay dalmaro horta adiga qosasho ma horta waxaan ku qoslay fleexanti ma moogo waan arkay waxaas ay meelaha ku qorqoreen laakiin taa waxaan ka leeyahay anigu wadankan waa deganahay runta haddaan ka hadlo barnaamijyo waxaan ka qayb galaa aad u tiro badan waxyaalo badan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayaan ka qayb galaa mar walba marka waxyaalaha aniga horta inta badan aan ka duulo oo aan runtii aan aad ka xoog u saaraa waxay tahay waxaan isticmaalaa hal kelmo oo ah ahow waxa aad tahay qofka aad tahay ahow anu waan jeclaa qofka wuxuu u yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eega ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalaya ereygaas diyaanadoo kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisiyo wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikrad isku socdo waa necbahay runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in anigana operation isku galo ilaaha maxamed sameeyaan ku dhaartay nolosheeda inaan jirkeyga operation lagu sameyn weligeena aan ku fikirin ilaaha baan ka magan galay ma baahnin qodobka ugu dambeeya iyadana aan ka weydiinayo videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay deeqa afro ay wadada u furtay 2019 ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisaba in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن inaan u bilaabana marraba sababta waxaan anigu horta mar walba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldamo rabo waxa aan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxaan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii haddii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha israfinayaan soo saalaydii rafine meeshaan waa la israfayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo
sida kala kaga fiican saana hadda rabaa hadda kadib inaan wax ku soo saaro wallah sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoy xageed ku baratay cadaaladda masay tiri isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usha cali ku dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay waa qolada isla fiidiyoya nooc kala soo saaray ma umaleynay ugu dambeyntii waa waxyaaba dararka qoxsleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinayna waraysigan macaawa halkan nagu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dal marow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa waa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aada u hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay idinkana hayd soo hanuushee waxubsada wax walba xogogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hubi maxaa la yidhaha xogogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xugminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimaan isku leenahay haddaanu dad nahay bini-aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin soomaalidu bini-aadanimada lumisay war bini-aadanimadu waa beeska ugu horeeya taa dhis fahmaysaa intaasaan kusoo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halkaasaan ka jeclaa qalbaan kaasi jeclahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaali ah oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mar igu tiri video allah thank you dalmarow aan sii dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay maan raadinay israadin waqtiga nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulilah waan helay videogiina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaane iska tuura waa ka codsanayaa waxaan kaloo dalmar aan sii codsanayaa waxay tahay dad waxaa jira pages samaystay deeqa afro ah anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban keliya ayaan leeyahay page baa waa dhexe wiilii sameeyey pagekaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu sheer gareeyo waxaan hadda siyaacaya oo meelaha maxaa la yidhaahdaa xaggan baqaar waxaan arkaya leentay sawiradeeda soo qaataan waxa idin soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan leeyahay dadka ay ugu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imataliyo beenta loo tuuri lahaa youtube-yadana loo kala tuuri qof kasto anigu horta wayda cafiyey laakiin iska bixiya youtube-yada qof kastoo youtube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiska qayb la soo noqonayaayo waan ku dacweynaya aad baad umahadsan tahay waa facebooka deeqa oo dad badan youtube-yadaba dhammaantood iga saara wixii hore bik waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan maya de xitaa fanaaniinta caayayaan waxay leeyihin hiblaaye aniga yaa khatarsan tartaba yani meelahan waxaan aniga iga suurta ma qofba qof mateli karaa qof ma mateli kara aniga ma mateli kartaan anigu hadda maanta dalmar ma mateli karo leesma mateli karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa mararka qaarkood soomaalidan waxaa isdhaha tolo maxaa horey ka qayb qaadanayaan ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcararaya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxaa iska hor carcaraysaa iga daaya aniga ma aha
anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya uu ka ogolaanaya Facebook mogtaa aniga kayga page-kayga bil korba ugu dambeysay oo wallahi oo bilaahi in wax ku share gareeyo iga daayay dadka ay ku jireen aad baad u mahadsan tahay daawada halka waxaan ugu dhamaaday waraysigii koobnaa waanigu awriye dalmar iyo deeqa afro ay kala qayb qaadatay barnaamijka sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.